لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ugu yaraan 9,300 oo xujay ayaa sanadihii hore soo cumreysan jiray, laakiin abaarta daba dheeraatay awgeed ee si isku mid ah ugu dhufatay dhulka Soomaalida ayaa sabab ka dhigtay in qiyaasta wasaaradda diinta ee sanadkan ay soo xajin doonaan 7,500 oo xujay Soomaaliyeed ah kana tagi doona dhammaan dhulka Soomaalida. in hoos u dhac uu ku yimid tirada xujayda waxaa goobjoog u sheegay Cabdixakiin Xasan Ashkir, wasiiru dawlaha wasaaradda diinta iyo waqaafta. xajka iyo arrimaha diintu inta ay ogtahay sanadkan laynoo ogol yahay inay xajka tagaan waa 9,300 oo xaaji, laakiin sababo fara badan awgood oo ay kow ka tahay abaartii daba dheeraatay ee sanadkan wadankeena ku habsatay duruufaha dhaqaale ee wadanka mararka qaarkood ka jira. waxaan filaynaa in numberku intaas ka yaraan doono uu noqon doono ugu yaraan taqriiban 7,500 xaaji inay inaga tagto. number intaa ku dhow dadku weli kuma dhammaan oo uu socdaa, laakiin estimationka ama saanu ku qiyaasayno waxaan isleenahay waxay noqon doonaan 7,500 ilaa 8,000 oo xaaji taqriiban. wasaaradda diinta iyo waqaaftu kuma qanacsana qaabka hadda xajka lagu tagayo xag dhaqaale, balse waxa ay tixgelinaysaa heshiiskii ay gashay xukuumaddii Cumar Cabdirashiid. waxaa sidaas yiri Cabdixakiin Xasan Ashkir, wasiiru dawlaha wasaaradda diinta iyo waqaafta. heshiiska hadda lagu tagayo xajka wuxuu ahaa heshiis ka horeeyay wasaaradda xajka iyo arrimaha diinta iyo guud ahaan xukuumaddan hadda joogta ka hor dhacay ayuu ahaa oo ay saxiixday ama ay hormuud ka ahayd xukuumaddii naga horeysay. sidaas daraadeed waxaanu anagu ku qasbanaanay anagoo ilaalinayna xiriirada guud iyo heshiisyada wadamada lala gala ama gudaha wadanka laga galay ee xukuumaddu ay la gashay inaan sidiisii ku ilaalino. oo heshiisku wuxuu dhacay bilowgii sanadkan, anaguna taqriiban waxaan nimid bishii saddexaad meel ayaanu nimid, wax weyn ma aanan ka bedeli karin. sida aan rajaynayno ama aan rajada badan ka qabno waxa weeyaan in ay duruufta xajka iyo xaaladiisaba anagoo ka caawinayna, ma aha macnaheedu inaan saarayno culays shirkadaha kaliya. waxaanu kala xaajoon doonaa wasaaradda xajka iyo cumrada ee Sacuudiga, waxaan kala hadli doonaa shirkadaheena iyo sidii loo hagaajin lahaa duruufta xajka. rajo badan oo aad u weyn ayaa waxaan ka qabnaa inuu isbedel imaan doono ka wanaagsan kan hadda jira. si loola socdo xaaladda xaajiga Soomaaliyeed ee tagaya dhulka barakaysan waxaa la magacaabay 2 guddi. waxqabadka gudiyadaas waxaa sharaxaya Cabdixakiin Xasan Ashkir, wasiiru dawlaha wasaaradda diinta iyo waqaafta. heshiiskii hadda ka faragelinay ama wax ka taabanay buu ku jiraaba inaan wasaaraddu oo matalaysa xukuumadda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya inay joogitaan ama muuqdo oo rasmi ay ku yeelato xajka. waxaa jira guddi loo saaray oo 2 guddi ah. guddi arrimaha xajka iyo oo la socdo mas'uulka ah oo hogaamin doono agaasimaha wasaaraddu haddana joogaba xajka. ana rajaynayna in uu wuxuu joogaa Makka. aan rajaynayna inuu wax badan ka tari doono xaaladda xaajiga iyo xajka Soomaaliya. waxaa jira kala guddi kale oo oversight ama mutaabaca iyo muraaqabo ku sameyn doona guud ahaan sida uu xajku u socdo oo mustawa ka sareeya kaasa oo wasiiru dawluhu hogaamin doono. ay xubno ka noqon doonaan safaaraddeena ku taala Riyaad iyo qunsuliyadda Soomaaliya ee Jidda ku taala. wax saameyn ah khilaafka Qatar iyo wadamada khaliijka u dhaxeeya ma ku yeelan doona xujayda Soomaaliyeed ayaan weydiiyay Cabdixakiin Xasan Ashkir, wasiiru dawlaha wasaaradda diinta iyo waqaafta. madahan wax khilaaf oo inaga la dhaxeeya cidna ma jiro. Sacuudigu wali waa asxaab, waa dawlad ay calaaqaad fog naga la dhaxayso, waa xiriir soo jireen naga la dhaxeeya. khilaafku wuxuu ka dhaxeeyaa wadamo Carbeed oo khaliijka iyo kuwa khaliijka ka baxsan dhexdooda, laakiin inaga wax mushkilad ah ama dhibaato ah oo inaga haysata ama naga la dhaxaysa wadamadaas haba yaraatee ma jiro. Masar waxay ka mid tahay wadamada dhibaatadan khaliijka hadda azmada khaliijka qaybta ka madaxweynuhu maanta jooga ama shalay buu tagay
inaga si dadban iyo si toosatoona ma filayno inay noo saameynayso arrimaha xajka. wasaaradda diinta iyo waqaafta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa wado qorshe cusub oo wax looga dhimayo qarashka lagu tago xajka si waajibkaas gudashadiisa loo fududeeyo. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.